ciyaartoyga caanka ah ee Ashraf Hakimi ayaa xaaskiisu waxay soo istaajisay maxkamad iyadoo rabtay inay kala tagaan waxayna codsatay furiin sidoo kale waxay dalbatay hantidiisa kala badh in loo kala qaybiyo bar kamidana iyada la siiyo waxa dhacay xukunkii maxkamadda kadib markii la kala furay labadooda waxa la eegay hantida uu haysto Ashraf Hakimi haddaba waxa mucjiso ku noqotay xaaskiisii hore in wax lacag ugu jirin ba Hakimi bangigiisa Ashraf Hakimi ayaa intaanu furiin ku dhicin ka hor hantidiisii oo dhan wuxuu ku wareejiyay hooyadii isaga oo ku qoray magaceeda arinkaasna xaaskiisii hore waxay ku noqotay niyad jab iyo amuuray la fajacday dhacdadan ayaa noqotay mid maalmahan oo dhan la hadalhay waxayna ku baahday baraha bulshada si aad wax badan uga ogaato qisada ciyaartoygan caanka ah nala joog ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan waa anigoo ah Nadra Saciid fadlan videogan like saar si ay anigana dhiirigelin igu noqoto mahadsanid Ashraf Hakimi waa mid kamid ah ciyaaryahanada dalalka Carabta ee Morocco sidoo kale wuxuu ahaa ciyaartoygii ugu hadalhayntii saameynta badnaa koobkii adduunka ee lagu qabtay dalka Qatar waa mid kamid ah xidigaha ciyaara kubadda cagta yaraantiisii wuxuu ku soo koray nolol aad u adag isagoo la soo kulmay caqabado kala duwan hooyadii waxay ku soo korisay duruuf waayaheeda wadata Ashraf Hakimi wuxuu ku dhashay Spain caasimadda Madrid sanadkii 1998 aabihii iyo hooyadii waxay ka soo jeedaan dalka Morocco iyagoo Spain nolol u soo raadsaday una soo hayaamay sideetamaadkii waxay rabeen inay helaan mid dhaanta nolosha ku jireen oo ka wanaagsan Ashraf aabihii Xasan Hakimi wadooyinka ayuu wax ku iibin jiray halka hooyadiina Saciido Nuux ay ka shaqayn jirtay nadiifinta guryaha labadiisa waalid ayaa ka shaqayn jiray shaqooyinkan aadka u adag si ay caruurtooda ugu soo saaraan nolol maalmeedkooda Ashraf Hakimi wuxuu ka soo jeeday qoys danyara isagoo ku soo koray nolol aad u adag waqtigu wuxuu isku raba ugu dambeyn Ashraf Hakimi wuxuu noqday xidig caan ah oo laga yaqaano dhammaan badaafaha dunida guul kastoo gaadho Ashraf Hakimi wuxuu caado ka dhigtay inuu la dabaaldego hooyadii waxa qasab ah markastoo ciyaarayo garoonka inaanay ka maqnaanin hooyadii kana soo muuqato halkaas Hakimi noloshiisa way isbedeshay iyo tii labadiisa waalidba waxayna noqdeen family taajiriin ah oo lacag haysta Ashraf Hakimi wuxuu guursaday Hiba Abuuk iyagoo nolol cusub yeelay waxay ahaayeen laba qof oo aad iskugu qanacsan kuna faraxsanaa noloshan cusub ay bilowdeen waqti xaadirkan Hiba Abuuk da'deedu waa 36 jir halka uu ka yahay Ashraf Hakimi 24 jir waxay ka weyn tahay 7 sano sidaas tahayna waxay ahaayeen lamaane isku faraxsan 2 sano kadib waxay dhaleen laba caruur ah kan ugu horeeya ayaa dhashay sanadkii 2020 ilmahoodii labaadna wuxuu u dhashay sanadkii 2022 waxay ahaayeen family qurux badan oo laba ubada haysta balse wax kastaaba halka dambe ay iska bedeleen Hiba Abuuk waa jilaacana sidoo kalena waa gabadh modela waa actrad iyada oo ka soo muuqatay filmo badan hal mar ayaa waxa laga warhelay Ashraf Hakimi oo maxkamadda looga yeeray ciyaartoyga caanka ah ee Ashraf Hakimi ayaa xaaskiisu waxay soo istaajisay maxkamad iyadoo rabtay inay kala tagaan waxayna codsatay furiin sidoo kale waxay dalbatay hantidiisa kala badh in loo kala qaybiyo bar kamidana iyada la siiyo waxa dhacay xukunkii maxkamadda kadib markii la kala furay labadooda waxa la eegay hantida uu haysto Ashraf Hakimi haddaba waxa mucjiso ku noqotay xaaskiisii hore in wax lacag ugu jirin ba Hakimi bangigiisa Ashraf Hakimi ayaa intaanu furiin ku dhicin ka hor hantidiisii oo dhan wuxuu ku wareejiyay hooyadii isaga oo ku qoray magaceeda arinkaasna xaaskiisii hore waxay ku noqotay niyad jab iyo amuuray la fajacday dhacdadan ayaa noqotay mid maalmahan oo dhan la hadalhay waxayna ku baahday baraha bulshada daawade hadii aad xaaskaaga kala tagiysaan arinkan oo kale ma ku sameyn lahayd sidoo kalena gabadhay arintan oo kale hadii ay ku qabsan lahayd maxaad sameyn lahayd Ashraf Hakimi sidanu sameeyay qalad miyad u aragtaa mise sax fikirkaaga nagula wadaag dhanka commentiga waad ku mahadsan tahay hadii aad nala soo gaadhay ilaa iyo dhamaadka muuqaalkan like saar videogan si uu dad badan u gaadho una share garee asxaabtaada iyo family-gaagaba mahadsanid